waxeenni badeenni teenni aniga intaas oo kaleeto yaan qoraallo aad aan uga cudur daartay oo aad u dhaadheeraa aan dhaliisha soomaalida wariyaashooda aan u helay ee ahayd tusaalaha aan kusoo gabagabeynayo waxay tahay maraykanka 6 January yaa waxa weeraray our capital hill our democracy our nation annaga marka waxyaalaha lahaanshiyaha ah iyo ereyga meesha uu u dhacayo ama jumladda meesha ku biyo shubanayso oo kaleeto waxyaalaha aad nooga maqan ee ka mid tahay oo welina aan lagu fawjignayn in ay macnaha wariyaashiina ama ay kasoo dhadhamayso ama ay kasoo dhowdahay alcadaala waa journaliste aniga laftirkay mar baan dad la shaqeeyay kasoo mid ahaa inkastoo waqti fog ay ahayd haddana wariyaasheena kuma dhiiran karaan sida kenyaanka kulligood wariyaashooda waxaa halqabsi u ahayd no inch less no inch more ma jiro annaga sidaasoo kaleeto hal wax oo aan wada qabsan karno si kastoo afkaarta siyaasadda oo maxalliga aan ugu kala duwannahay si kastoo aragtiyada siyaasadeed iyo waxyaalaha annaga dhexdeena aan ugu kala duwannahay markay middan oo kaleeto imaado in la isu wada duubnaado in dhabarka la isku wada qabto back to back la ahaado in hadalka xataa biyo dhiciisa iyo hadalku meel dheer buu gaaraa hadalku wuu ka xanuun badan yahay wuuna ka dheereen badan yahay wuuna ka xawaara badan yahay marka ficil la isula tago arrintaas dhowr mar yaan ka cataabay inkastoo fariinteeda aysan dad badan gaarin haddana intay gaarto oo tabarteeda ah waan ku dadaalay haddii ay jirto marka su-aalna igama aha haddii ay jirto institutiono wariyayaasha iyo wariyayaasha keliya maaha shaqsi kasta oo popularity ama bulshadii indhaheeda ah ama fariin fidin karo in ugu yaraan institutionna inay dowladdu ku soo darto oo kaleeto weliba wasaaradda warfaafinta in dadka wadaniyaddu wax weyn waay in dadka wadaniyadda dhankeeda loo jiheeyo maanta ninkii administrationka hadda waddanka ka talinayo kaleeto diidan berri wuu baxaya waxaa la rabaa qofkaas inuu haysto xarig dheer oo kii yimaado xataa inuu kula dhegan yahay uu dhankiisa ka dhisayo waxaan filaya waa ku dheeraaday aniga mawduucaas yaa focuskayga ahaa insha allahu guul baan rajaynayaa har iyo habeen baan soo taaganahay yuusuf garaadoo kaleeto ereybixin oo isticmaalay oo aad aan u jeclaystayaa jirto oo ah guulaystayaan la dhihin aan guulaysano hala wada faatixaysto insha allahu intaasaan uga baxay waa ku mahadsantihiin fursadda ay siisaan aad baa u mahadsantahay liibaan talo badan oo muhiim ah noo soo jeedisay laba qodob baan rabaa inaan xasuusiyo dhammaan akhyaarta waxaan doonay tala bixin muhiim qodobka hore waxa weeye horta in lasoo yargaabiyo oo waqtiga tan labaad waxa weeye qofka tala bixin yaroo kooban waa ku darsan karaya taa waa muhiim tan laakiin waxa ugu muhiimsan ee aan doonayno aan rabno in aan ay arrinteena ku jaangoynayno waxa weeye su'aalo in la weydiiyo wasiirka ku saabsan door walba oo ku saabsan qadiyadda badda gaar ahaan maadaama uu wasiirkii warfaafinta yahay wasiir-ku-xigeenkii warfaafinta dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uuna yahay weriye hore khabiir ah oo media expert ah in halkaa oo doodan oo qodobkaa kaga jiro insha allah doctor axmed cali daahir attorney generalkii hore baa isna inoo imanaya mar dhow mar labaad mar kalena xasuusinayaa isaga ayaa wixii dhanka sharciga iyo ergadana ka mid ah ergada heeg joogta isaga ayaa arrimaha inoo geliya marka waxaan rabaa in mofox la saaro su'aalaha haddeerna sidaan hore idinku sheegay sida aad laynku u socdo baan idinku la horraysiinaya intiina kor saaran waa la soo qaadaya dhammaan gacmo badan baa taagan waa arrinteeni waa arrin xasaasiya laakiin waxaan rabaa inaan keliya laynka aan uga boodi karayo keliya isu dheelitirka hablaha iyo inamada kolkaa waxaan kusoo dhaweynayaa marwo ubax oo aan rabaa inaan laba hablood baan isku xijinaya kadib akhyaarta kalaan ku baalkeenaya waan arkaa rag aad muhiim oo akhyaara baa joogo oo weliba keyskan aad ugu amiin iyo maxamed nayf iyo aad waxaan kusoo dhaweynaya سليمانو ma joogto سليمان عبد الغفار واye inta hal mar ubaxa baa wax yar raali noqo aan ka boobo saaxiibo gabdho badan oo waxa jira arrintan ICG Folks ka nugula jiray marka ugu horreeyay Umar Samatar iyo akhyaarta groupka dawlad ku nool waa u mahad celinaya sidoo kale aad u salaamaya saaxiibkay wasiir Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala Cabdulqaar Shiro waaye
Suleymaan oo gabdho badanaa hoos jooga oo barnaamijka ICJ-da aad ula socday oo Lul Carraweela ay ka mid tahay, Fatima Maalta ka mid tahay, Yurub Waaberi ka mid tahay, marka rag badanaa isku xigsaday. ani xataa hoosaan u degaya audience-ga noqonaa, marka please gabdho badan soo saar saaxiibo aad aan gabdhaha waa ku socday walaal, waa mahadsan tahay. waxaan ka codsanayaa Anise iyo Suud inay hablaha soo qaadaan oo iyaga siiyaan muhiimadda u badan. haddeerna waxaan kusoo dhaweynayaa Ubax, waan leeyahay walaal soo gaabi runtii su-aashana abaar iyo mawduuca iyo talagelyada wixii oo kooban. waad mahadsantihiin. Ubax may maqlis? ها كمقلي وسلامتين دبانتين هبين وناكسن مالين وناكسن قلب وناكسن ساعة كل قدسنا أنكو سوغنا هني أنا وحن سؤال شيء أما كومنت كسعتا أنا العدالة أنا أرنتن وحو سومالي ميل كستي شوكتو aad ayay engaged ugu noqotay. xataa hadda waxaan arkaynaa ilmo generationka laad qurbaha ku dhashay xataa luuqada garanaynin Soomaali waxba ka xiiseyn jirin, arrintan way xiiseynayaan inay ogsoonaadaan. shucuur noocaas oo kale ah waxaana arkay waagi qalbi dhagax Ethiopia loo dhiibi jiray. Soomaali dhan waa wada kacday. marka waagaasi waxayd inaan ka faa'iideysano maxaana kiciyay, ma Soomaalnimadeena maxay ku saleysan tahay. saan ogsoonahnay dhib kastaba faa'iido wuu leeyahay. hadda soo far waxaan ku jirnaa difaac hanti aan leenahay, waana la soo warar difaacaan ku jirnaa. laakiin haddanana caqligu waa inuu na siiyaa oo ay tahay sida uga faa'iideysan karnaa at the same time aan difaac ku jirno. marka arrintan oo kale oo dadkii oo dhan soo wada kicisay engaged ka dhigtay, waa inaan markaa ka faa'iideysanaa sidee Soomaalnimadeena aan ugu define garayn karnaa. maxaa waagii qalbi dhagax oo kale maxaa na kiciyay, shucuurtana kicisay oo Soomaalnimadeena u hiilinay, majisiyadeena miyaa mise wax kale miyaa. tan haddana waa sidoo kale maxaan ugu qiireysanahay, sovereignty-ka naga dhexeeya miyaa Soomaalnimadeena value-geena Soomaali ku dhisan yahay. arrimahaas oo kale markaa bayaamintooda waxa ay qusayso qof kastoo Soomaali ah oo influential ku ah, laakiin haddana meediyada oo kale platformkii arrintaas suurtagelin lahaa ayay haystaan. marka wasiir ku-xigeenka hadaayad hadalkiisa wuxuu yiri haddaan aan qalad u fahmin, wuxuu yiri saan u qaatay warbaahinta private-ka way naga xoog badan tahay, laakiin haddana waxay ku xiran tahay inta aad haysataan sida u isticmaashaan. marka ma idinku jirtaa qorshe ah xaaladan aan hadda ku jirno habkii kale aan uga faa'iideysan lahayn as jinsiyadoo kale waynu ogsoonahay inaanu kala qaybsanahnay, dhibaatooyin badanna soo maray, wada cabursanahnay, shaki nagu kala jiro, laakiin dhibkan sidee uga faa'iideysan karnaa oo aan uga dhigan karnaa wixii isku kaya xiri lahaa. waa mahadsantihiin. aad baa u mahadsan tahay Ubax, aad baa u mahadsan tahay. hadda waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkii Samatar. kusoo dhawow Samatar brother, inoo daadiyo xoogaa waxaan keliyaa mood baan geliyaa. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. su-aasha gabadhaas waxaan u dhiibayaa wasiir alcadaala. waxaan rabaa inaan xasuusin dhinaca su-aalaha kiiska badda ku saabsan oo dhan. waxaana la joogaa garyaqaan cali Soomaali oo inta badan waxa ka qoraa, daraaseeya, xog badan iyo macluumaad badanna ka haya. marka waxaan codsanayaa su-aalihiina inaan wasiirka keliya lagu dilin ee aad qaybsaan. waa mahadsantihiin. wasiir kusoo dhawow. aad iyo aad baa u mahadsantahay walaal iyo dadka ku jira dhammaantood. marka hore horta waxaan rabaa inaan xoojiyo runtii aragtida Liibaan iyo Faarax iyo dad kaleeta ay soo jeediyeen oo ah qadiyadan dadka takhasuska u leh maaragtay muxuu ahaa qadiyad ahaan macnaheeda iyo nuxurka hoose oo ku dhex jira iyo dacwadda iyo wax ku saabsan. qaarna waa ku jiraan, qaarna waa soo geli doonaan. annagu dhinacaan ka leenahay waa dhinaca xiriiriyaashu ku celceliyeen oo ah muxuu ahaa doorka warbaahinta uga aadan xaaladahan oo kaleeta marka la joogo. waxaan runtii muxuu ahaa marka inta badan ra'yi ayay ahaayeen. Ubax ayaa su-aal muhiim ah keentay oo ah qadiyadda noocan oo kaleeta ah muuqata in hadda baraarug wanaagsan uu jiro, sideen uga faa'iideysan karnaa. laba qaybood baan u qaybinayaa Ubax. muxuu ahaa su-aashaada qayb waxay tahay
waa baraarugsannahay sax laakiin baraaruga meeshii loo baahnaa ma gaarsiisan yahay. su'aalo badan iyo doodo badan baa ka furan. waxaan ka mid ahay dadka aaminsan si fiican inaan u baraarugsannahay laakiin weli wax badan inay muxuu ahaa naga dhiman yihiin. gaar ahaan marka ay timaado dadkeenu siday u abaabulan yihiin waxaa laga yaabaa inay fiican tahay ama qadiyadda ay u fahamsan yihiin. waana wax dadka soomaaliyeed weligood ku soo beeraa inay dhulkooda difaacdaan, in ay magacooda difaacdaan, inay diintooda difaacdaan, inay afkooda difaacdaan, inay jiritaankooda difaacdaan marxalad kastoo ay ku sugnaayeen. yacni ummad taariikh fac weyn ku leh waaye dhinacaas qayb ahaan. marka taasaa xamaasadda iyo dareenku ka mid yahay. laakiin warbaahinta oo ah wax nagu cusub, muxuu ahaa gaar ahaan warbaahinta madaxa bannaan ee muxuu ahaa aan dowladuhu saamaynta ku lahayn ama aan ururo gaaruhu saamaynta ku lahayn ee sida dhexdhexaadka u hadla, siday arrintana u tabinayso, iyo dadka xitaa waxaana la isgareeya oo laga yaabo inaysan xarumo warbaahineed ka shaqaynin laakiin dadka saamayn kule ay yihiin. doorkeennu marka la barbar dhigo meesha ama cidda aan ishayno wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro. gaar ahaan meelaha ay tahay in wax looga daro waxaa ka mid a yacni qadiyaddan ma qadiyad lagu kala duwan yahayba mise waa qadiyad nooce ah waaye. markaan dad Soomaaliyeed nahay ma qadiyad siyaasi ah oo dowlad iyo urur iyo xisbi iyo koox iyo deegaan iyo wax la xiriira ahba, mise waa qadiyad ay dhanta tigeenna u taagan iyo jiritaankeenna iyo ummadnimadeenna. waxay u baahan tahay in lagu celceliyo sababtoo ah meelo badan iyo marar badan baad arkaysaa in qormooyinka qaarkood loo leexiyo kuwa dadka kala qaybinayo. taas waa mid. waxaa arrinta labaad oo halisteeda le ay tahay qadiyaddan inaan annaga dadka cadowgeenna ahuna isticmaalin oo aan fahamno in fariimaha iyo dadka aan xiganayno fariimaha ay wadaan ay noqdaan yacni ay yihiin fariimo qorshaysan oo abaabulan. sidaas daraaddeed inaynan dadkeenna u soo tarjumin oo aynan u soo qaadin macluumo fariin xambaarsan. intii annagu beddelkeedana inay tahay in fariinteenna aan qaadno qadiyadeennana aan muxuu ahaa bannaanka geyno. taasi waa sida ayla tahay qaybaha ayla tahay inay u baahan tahay abaabulidda in laga kabo. maxaan ka kororsan karnaa ama maxaan uga faa'iidaysan karnaa baraaruga iyo dareenka jira? waxaan aaminsanahay wax aad iyo aad u weyn baan uga faa'iidaysan karnaa oo ah waxa naga lunsan, oo ah waxa waddankeenna dhibaatadu ay ugu timid, oo ah horta bal inaan isweydiinno maanta waa kacnay, waxaan u kacnay waxaan wada leenahay. waxaan wada leenahay baan u taagannahay. su'aashaasi waxay keenaysaa sideen wax loo wada lahaadaa, sideen wax u wada lahaan karnaa, sideen u wada jiri karnaa, maxaan wada leenahay, maxaynaan wada lahayn, maxaa qadiyad guuda, maxaa qadiyad qof ah. shaksiyadaynta weli meelay ku dambaysaa runtii sidii hore maaha. kooxaynta weli meelay ku dambaysaa sidii hore maaha. kala saaris la'aanta qofka iyo qaranka weli meelay ku dambaysaa sidii hore ma aha. marka waxaan aaminsanahay ubax waxaan uga faa'iidaysan karnaa in dadka aqoonta leh ee aqoon-yahanka ahi ay jiheeyaan oo waxaanay u beddelaan fariin dadka Soomaaliyeed u qaada. sidee loo kala saaraa waxa la wada leeyahay iyo waxa aan la wada lahayn? sidee wax loo wada lahaadaa? sidee ummad loo ahaadaa? sidee caadifadaha looga xakameeyaa mararka qaarkood inay qarka jebiyaan ay gaaraan meesha ugu dambaysa ama dadka wax wada lahaanshooda ay gudbiyaan? marka waxaan runtii aad iyo aad u aaminsanahay inay qadiyaddaani tahay qadiyad weyn oo na midaysa, meesha ay mudan tahay la dhigay, lana sii xoojiyo. saxafiyiinta iyo warbaahinta iyo dadka jiheeye iyo dadka wax qora iyo wariyaasha keliya ma aha. maanta waana jeclaan lahaa in doodaas qayb looga soo daro oo ah social mediaha oo runtii aan loo kontroolin sida warbaahinta oo mararka qaarkood wariyaasha keliya gacantooda aan ku jirin. in si guud qof kasta oo Soomaaliya uu ugu baraarugo in fariin kasta uu gudbinaya uu noqoto mid dooda Soomaaliya wax ku daraysa. in qof kastoo mas'uul ahna uu ogaado erey kastoo uu yiraahdaa inuu noqon karo erey la xigto oo ama Soomaaliya wax u tara ama wax ka dhima. waa mahadsantihiin. aad iyo aad baa mahadsan tahay wasiir alcadaala. sidoo kale waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno cabdinuur maxamed axmed agaasimaha madaxtooyada iyo sidoo kale maamdeeq oo ayadana ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha. dhammaantiin soo dhawaada. waxaan rabaa in habsami socodka dooda ay ku salaysnaato su'aalo. inta badan waxaan insha allah siinayaa gabdhaha oo aad noogu yar dartood gabdhaha horumarinaya. waa ogahay rag badan baa kusoo jiray in muddo ah. waxaan siinayaa shamso caraweela sheegow kusoo dhawow. waa mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxaana la jooga abukaata cali oo dhinaca badda iyo waxyaabaha uga baahan tihiin ka jawaabi doona hadduu ala yidhaahdo. waa mahadsantihiin dhammaantiin. shamsi soo dhawow.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan dhowahay walaal, waa ku mahadsan tahay mikrofoonka ay siisay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka sharafta leh ee soo abaabulay barnaamijkan qiimaha leh oo ilaa saakay aan sugaynay runtii. Su-aashaydu waxay ku socotaa Abukaata Cali. Waxaan rabay keyskan ah in maaragtay laba wadan markay ishor imaadaan mid ka baxo ma noqonayso haddii Kenya ay ka baxdo ay totally ay dhahdo ma geleyno, ma noqon doonto tii ugu horeysay oo soo marta maxkamadda oo horey ayay usoo dhacday oo waxay dhex martay Philippine iyo China oo dagaalkooda iyo dacwadooda bilaabatay 2013 kadibna maaragtay lasoo afjaray July 2016 taas oo Philippine ay ku guuleysatay balse China ay aqoonsan weyday oo ay diiday inay aqoonsato go-aankaas. Su-aashaas hore waa looga dhawaajiyey, hadda laakiin waa kusoo celinaya maadaama Abukaata uu nagu soo biiray. Haddii ay noqoto in annaga aan ku guuleysano oo Kenya imaan weydo, maadaama hadda ay ku dacwooneyso covid iyo waxaas baa jiro cudurdaar ay sameyneyso oon ognahay runtii in Kenya ay rabto inay nagu sameyso waxa la yidhahdo exhaustion oo mentally ah iyo maaragtay xagga maaliyaddana maaragtay dhiigbax weyn aan ku jirno oo markastoo keyskan lasoo qaado lacag fara badan ee naga baxayso. haddana haddii ay arrinta ay kusoo gabagabowdo sidii Philippines iyo China, maxaa qorshe ahoo noo diyaarsan dhanka yacni dhanka looga iyo maxaan sameyn karnaa? Waa mahadsantihiin. aad iyo aad baa mahadsantihiin. su-aasha ku xigta baan qaadi doonaa haddaa la idmo. waxaan siinayaa kusoo dhow bashiir cabdi, adoo soo koobi walaalo. السلام عليكم. أبني سلام يا دمانتي وزير عدالة يا walaalow qadka aad buu kaaga xun yahay, haddaa codkaaga hagaajin karto. اوكي imika ma maqlaysaa walaal? imika waa la maqlaa waan filayaa. haa si fiican waa lagu maqlaya walaal, ku soco. hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo dhammaan dadka meesha ku jira. waxaan su-aasheeda weydiinayaa Abukaata Cali. Soomaaliya iyo Kenya 60 sano ku dhawaad bay dal darisa yihiin, laga bilaabo dowladdii aadan cadde ilaa dowladdii kacaanka. Soomaaliya iyo Kenya wax ay isku haysteen ma jirto. Kenya Soomaaliya badal ay isku haystaan ama maanta la leeyahay Kenya bad ku haysta Soomaaliya waxay bilaabatay wixii ka dambeeyay 2009. Kenya Soomaaliya 30 ama 40 sano ku dhawaad wax bad ay isku haysan. maxaa keenay maanta 2009 ilaa maanta 2021 inuu dhaho Kenya iyo Soomaaliya bad bay isku haystaan? ma Kenya iyo Soomaaliya bad ay isku haystaan ma waxaa keenay arrintii ay heshiiska la saxay ahayd arrintii MOU-da, mise waa arrin soo jirta ilaa 60kii? su-aashaas rabaa in laga jaahil saaro. aad baan u mahadsantihiin. aad iyo aad baa u mahadsantahay Bashiir. waxaan rabaa labadaas su-aaloodba inaan u geeyo Abukaata Cali, kadibna laba su-aalood oo kale aan qaadi doonaa, kadibna waxaan u geyn doonaa martida panelka. waa mahadsantahay Cali, kusoo dhowow. samatar waa mahadsan tahay. dadka kale oo dabcan sharci yaqaaneen waa ku jiraan, wixii oo aragti duwanaansho ka waa iyagaa sheegi doono, xeeraalihiina wuu noo imaan doonaa. su-aasha gabadha ku saabsan maqnaanshaha, dabcan ayadaaba sheegtay in maqnaanshaha horta waxa ka bixitaan ma aha. ACG kamaysa bixin Kenya, taas waa another issue. waxaa la dhahaa hortegid la-aanta maxkamadda waa kala duwan. non appearance before the court iyo in withdraw ay sameyso waa kala duwan yihiin. ka bixitaankana aada u xun. ka bixitaankan hadda waxaa umaleeyaa inuu suurtagal ahayn qaanuuniyan oo u baahan yahay shuruudo kale oo horey loogama bixi karo, waqti badan bay u baahan tahay. marka xaadiritaan la-aanta inay tegi weydo, dabcan China iyo Philippine waa sheegtay, Chinaha ma tegin laakiin way kasoo jawaabeen dacwaddii oo waraaqaday soo qoreen aragtidooda ay ku sharaxayaan. maxaa dhacay China iyo Philippine haddaa akhrisidna dee waxaa China laga guuleystay oo diiday inuu imaado, Philippine guuleysatay. waana sheegay qareenka Philippine matalayana qareenka annaga haddana matalayo weeye. sidii kiiskaas loo fuliyana dabcan China dee dowlad awood badan waaye, negotiation ayay ka galeen. inkastoo China iyo Philippine ba dadkii ankalo saxiixay ay ka mid ahaayeen, haddana China si oo iskiisa ayuu declaration u sameeyey. wuxuu yidhi waxyaalaha sovereignty-ga taabanaya China waa in lagu dabaqaa
maxkamadda laguma dabaqayo chapter 15 la dhaho oo ankalose ka mid ah oo negotiationka ka hadla dowladaha oo inay ayaga isxallin karaan ayuu sheegay in lagu dabaqayo. doodiisina waa looga adkaaday. marka haddii kiiskaas la raaca xataa kiiska China waa looga adkaaday. kiiska Mareykanka iyo Nicaragua naftirkiisu inkastoo sabab uusan ku saabsanayn oo ahaa isticmaalka awoodda ee xiriirka diblomaasiyadda, haddana Mareykanka oo imaan waayay baa oo inkastoo uuna saxiixin, haddana Mareykanka dowladii ankalo saxiixana ka mid ma ahayn sida la ogyahay. UN organiska dhanba waa ku yaryahay oo waxyaalo hay'ado yar yar uu isaga qaybkiya asagana waa looga adkaaday oo maxkamadda inkastoo uu aqbalay waa looga adkaaday. qareenkii ka adkaadayna qareenkii annaga haddana matalaya ee Mareykanka u dhashay weeye. keligoodna ma ahayn. Venezuela waa diiday, dowlado fara badan baa diiday, Pakistan baa diiday. weliba arrimaha la diidayo arrimo xukun ku saabsan keliya ma ahayn, arrimo talooyin ku saabsanna waa jiraan oo qaramada midoobay ay ka dalbatay oo ay ka jawaabtay oo la diiday. marka aad bay u tiro badnaayeen. marka haddii ay imaan weydo oo soo xaadiri weydo, haddii ay dacwadda aragtideeda ay soo gudbisana okay weeye, waa sideeda loo socon. haddii soo xaadiri weydana qodobka 53 ee maxkamadda dabaqi doonta oo sheegayo in dhinaca kale hadduu dalbaday in loo dhaqaajiyo ay socon doonto dacwada. kadibna xukunkaas laba jeeraba waa lagu qasban yahay, ama ha imaado ama aysan imaan. kiiskana jurisdiction inay maxkamaddu u leedahay 2017 ayaa xukun ka soo baxay oo is-hortaagii Kenya lagu diiday. marka annaga taas laakiin waxaan rabaa inaan baraarujiyo ka dhigneen in kiiska cidda meesha imaada keliya iska qaadanaysa wixii la isku haystay. kiiska sidiisi baa loo gelayaa. proofku wuxuu saaran yahay cidda wax sheeganayso. annagaa la rabaa inaan caddaysano caddaymaha annaga low and facts ee maxkamadda inay yihiin in kala hubinaysaa. annagaa nagala doodaya. haddii aan ku guuleysanana xukunka maxkamadda sidii iyada oo joogta ayuu oola mid ahaan lahaa. in aysan hadda fulinta voluntary aysan u sameyneyn sida caadiyan laga rabayba waa la ogyahay, way ka muuqataa. laakiin awoodda qaanuuneed ee xukunka soo baxaa oo Soomaaliya siin doono oo ah in iyada full control ay u leedahay dhulkaas ana ka qaadan doonin laysan Soomaaliya kaliya la tacaamulaya ayaa wax aad muhiim u ah. marka Soomaaliya laba jeeraba iyadu maadaama ay dacwoodana tahay cadeymaheedana ay wadato inay Kenya soo xaadirtay in kale arrin khusaysa ma aha. Soomaaliya shaqo kuma lahan, waa arrin Kenya iyo maxkamadda u taala. arrinta hadda taalo wax annaga naga galay mala inay imaado iyo inay imaan weydo. waxaa muhiim ah in maxkamaddu kiiska naga noo dhaqaajiso, nagana dhageysato cadeymaha naga. taasna waa hadbo guul ma ahan isaan isleeyahay, guul darana ma ahan. waa dacwadii oo la qaaday ka mid tahay iyadoo dhinac uu maqan yahay. laakiin waxay tusinaysaa dhinaca kaasoo horjeedo inuu weak yahay. markastoo aad waaba la yaqaanaaba haddii aad aragtid dowlado isku difaacaya procedureka oo is-hortaagyo sameynayo, inta badan substantiveka mawduuca aad baa looga xoog badan yahay. waxaan hadda la isku haysto oo linekana oo equity linekana waa wax la yaqaano oo dowladaha sidaan annaga hadda u gudbisanay dowladaha u gudbistay same case waa arkaysaa sida loogu xukumay. wax yar oo in waa dhici karaan adjustments in la sameeyo oo wax yar leexin lagu sameeyo oo wax ay ka faa'iido. taas waxyaalaha macquulka tahay bay ka mid tahay. laakiin waxay u badan tahay sidiisa inaan annaga aan u helno kiiskaas. qareennadii dowladihii maqnaa ka guuleystana qareennada hadda annaga noo joogo waayo aad kalsoonida waxyaalaha noo gelinaya ka mid ah. su-aasha kale ee ku saabsan Kenya iyo Soomaaliya muranka ma jirin muxuu u bilowday? dabcan dowlado fara badan oo muran uusan ka jirin ayaa hadda kiisas ka yaala maxkamadda darisna ahaan jiray. kuma xirno in dacwad la iska geeyo inaad muddo badan daris ahaadaan. waxay ku xiran tahay dacwad inay dhalato ama dhul ha ka ahaatee ama xad ha ahaatee ama wax kaloo commercial ha ahaatee. laakiin waxyaalaha saaciday waxay ahayd heshiiskii UNCLOS oo Soomaaliya iyo Kenya ay saxiixeen 1982 ayna dhaqan geliyeen ayaa 94kii waxaa la sameeyey chapter 11 la dhaho ka mid ah qaabka loo fulin lahaa ayaa heshiis laga galay. chapter 11 waa chapterka Mareykanka ay diideen inay u saxiixaan heshiiskaas. Mareykanka waa aqbaleen heshiiska UNCLOS, laakiin chapterkaas ay concern ka muujiyeen oo sheegeen inuusan danaha Mareykanka la jaan qaadi karin. laakiin chapterkaas way saxiixeen markii dambe, markii heshiiska dambe oo 94kii la joogay. heshiiskana wuxuu hadda yaalaa sanadka Mareykanka oo 2012 dood loo soo dhigay. marka maadaama waagaas isku raacay in 200 oo mayl ee UNCLOS la saxiixayba waxaa la waa lagu darayaa 150 dheeraada lagu darayaa.
dowladuhu marka hala imaadaan qaabkay ugu darsan lahaayeen iyo khariidadooda ayaga oo dowladba dowladda dariska kale ay kala hadlaysa xaaladeeda ayaa hay-adda la dhigaa CBAT International CBAT Authority ayaa loo xilsaaray arrintaas in dowladdii keeni weydana iyadu ay go-aan ka gaarto ay soo saarto. dowladaha dhan baa gudbistay. Russia ugu horreysay 2001 bay ahayd. cumaan baa ka mid ah dowladihii 4 dowladood bay cumaan heshiis la gashay. Yemen bay la gashay, Iiraan bay la gashay, Sacuudiga la gashay, Baxrayn bay la gashay. annaga Soomaaliya markaan gudbisanay dabcan waxaa isqabsanay Yemen iyo Djibouti iyo Kenya iyo dowlado badan baan isqabsanay. laakiin Kenya ayaan si gaara MOU u galnay. marka MOU-gan haddaa akhrisaan qaybta hore waxaa waaye to guarantee no objection each other ku qoran. fasiraadiisana xukunka maxkamadda ee 2017 ayaa ka helaysaan. walow Kenya ay aada MOU-gaas isugu dhajinayso oo ay rabtay niyadeeda marka horena khiyaano ay ka rabtay oo iyadu ay expertiska iyo wixii loo baahnaa iyo luuqadda ku qoranba ay saameyn weyn ku leedahay. haddana Soomaaliya dhibaato kuma noqon. hadda maxkamadda way kasoo gudubtay. marka heshiiska waxa muranka keena waxa weeye 150 dheeraadka oo lagu daraayo waayo biyaha territorial waterka la dhaho ee dal kasta uu leeyahay. Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin cid isku haysato ma jirto. Kenyana kuma haysano, annagana naguma haysato. biyaha la isku haysato waxa waaye continental shelfiga biyaha la dhaho oo 150 mayl oo waliba beyond 200 mayl oo ankala isku qoran. halkaas waa eega dhaqaalaha badaha uu ku jiro oo la hubo in dhaqaalaha adduunka ku jiro. waxa continental shelf laga wadana waxa waaye waxaa leedahay gudaha waxa ku jiro oo hoose ee cumqiga ee dusha biyaheeda ma lihid. marka doodaas waxay xilligaas un bay imaaday kusoo beegmatay maahani. waa dood dowlado badan oo Soomaaliya kaliya maahan ay maxkamadda ka yaalaan oo arrimahaas ku saabsan loona kala xukumo. maasanta aad iyo aad aad mahadsantahay walaalkay cali. waxaan siin doonaa kadibna waxaan u geyn doonaa marti sharafka panelka 3 su-aalood oo isku xiriirsan. waxaan siin doonaa Dr. Ikraan Cabdi. soo dhawo walaashay. السلام عليكم horta waa idin salaamaya agaasimaha Cabdinuur sidoo kale abukaataha howlwadeenada iyo dhammaan dadka meesha ku jiro. horta aan laba su'aal watay iyo wasiirka laba watay. horta mid waa warbaahinta midna waa abukaataha arbina weydiyo. horta hadda ku hormar warbaahinta. horta warbaahinteena maanta waa waqtiga la joogo runtii kaalintooda saxda kamaysa qaadan oo hadda arinteena badda taas waxaan u leeyahay xataa ayagoo laba group kale ah ama maxaafid ah ama mucaarad ah oo maanta bulshada laftigeeda aanan information fiican ama wax sax ka helin oo example xataa ay isticmaalaan mar walba ay dhahayaan erebixin waxay isticmaalaan aad u qaldan. badda muranka ku jirta dhahan badda muranka ku jirta. baddeena anaga muranku ma jirto. waa bad anaga aan leenahay oo xaq aan leenahay. horta ereygaas labada dhinac way isticmaalaan. marka taas kasoo gudbo abukaata waxaan rabaa inaan weydiiyo horta dalal miyaa jiro door ku leh oo arintan sida hadday noqon dooda meesha ka socoto Norway iyo sidoo kale Italy adiga wadamo door kule miyaa jiro oo ayaga laftigooda cadaadis ku saaraya Kenya inay badan ugu qabsato oo marka intaas weydiin abukaataha waan idin salaamaya. waxaan siinaa su-aasha labaad Aamin Haroon. Aamin Haroon waa maasanta waa dhowahay. anigana su-aal kooban ayaan rabaa inaan wasiir alcadaala weydiiyo. si fiican bay dood u socotaa. waxyaala badan baa laga faa'iiday maanta kulankan. su-aashadu waxay tahay wasaaradda cadaaladda dowladda maadaama aan ka hadalnay maaragtay doorka ay saxaafaddu ku leedahay erebixinta iyo ka hadalka iyo inaysan dhexdhexaad ka noqon karin waxyaabaha qaarkood oo kale. inkastoo aan dalka joogin haddana waan isku day inaan la socdo. markuu arrin jirto arrin xasaasi ama muhiima ay jirto dowladaha waxaa lagu arkaa inay sameeyaan waxyaalo regular briefings ama maaragtay kulamo joogta ah oo loo qabto warbaahinta si xogta dhabta u helaan warbaahinta privateka ah ee way xoog badan yihiin dalka. marka waxaan rabaa inaan ka ogaado wasiirka in ay jirto macnaha team wasaaradda ka tirsan ama saxaafadda dowladda oo si joogta ah briefing ugu qabta ama hadday noqoto marka wax soo kordhaan ama ha noqoto si joogta ah si markii wax soo baxaan ay dadka
warbaahinta private-ka ama dadka maaragtay citizen journalist ama macnaha si tooskooda isu abaabula ay u helaan xog saxa maadaama hadda meelo badan aad ku arkaysa social media dadkii oo leh waan guulaysanay iyo Kenya waa ka raynay oo meesha waa macnaha way ka baxeen iyadoo taasina ayna sax ahayn aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay walaal aad baad u mahadsan tahay waa kusii soconaynaa waan mahadsantihiin dhammaan waxaan doonayaa warfaa oo mar in badan taagayay warfaa ma joogaa waa ku maqlaa warfaa may maqlaysaa si fiican ku soco walaal adoo ku soo koobiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa salaamayaa martida wasiirka iyo asxaabta ka soo qayb gashay doodan dhammaantiin waan salaamayaa salaan kadib haaruun ay u dhowdahay su-aasheeda aniga tiimkan loo diyaariyey loogu talagalay inay dadku runta u sheegaan iyo waxa jira si waxyaabaha beenta ah dadka looga ilaaliyo ayadoo ay fiican tahay dadkeenna inay lahaansho dareensiiyaan laakiin haddana warbaahinaa jirta oo dowladda afkeeda ku hadasha sida SNTV oo kale program oo dedicated u ah like weekly ama daily oo arrimaha badda iyo waxyaabaha nugula haysto ka hadlaya ma jira oo ma la sameeyey haddii la sameeyna welina maxaa uga qorshaysan wasaaradda warfaafinta taas waa mid su-aasha labaad abukaate cali bay ku socotaa abukaate waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah article 94 wuxuu sheegayaa in qof walba oo ICJ ka mid ah ay u hogaansanaanayaan shuruucda wixii ka soo baxa maxkamadda haddii Kenya u hoggaansanaan weyso ma la fili karaa in ay security councilka kuwa veto memberka ay macnaha ay wax ka rajaynayso inay arrintan veto ka dhigaan guushii ayadoo veto laga dhigay baa haddana waxaa dhici karta in aanan dhadhamin karin waayo weli recourse Kenya ka qaadan kartaa baa la leeyahay marka anagu ma fili karnaa in vetogaas ay macquul tahay in aan saaxiibo leenahay aan isku halayn karno marka labadaas su'aal weeyaan war mahadsantiin assalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka saddexda su'aalood labo ku socotay wasiir alcadaala iyo mid ku socotay abukaata cali marka waxaan kusoo dhaweynayaa wasiir cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala inuu kusoo dhawaado sidoo kale waxaan rabaa barnaamijka bilowgiisii waxaana la joogay cali yaasiin kurbe waxaan rabaa asagana inaan soo dhaweeyo qaybta modereerka waa mahadsantahay wasiir soo dhawow waa mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan u malaynayaa gabadha dictooresyadii aan kasoo bilaabo oo runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah ka hadashay oo ku saabsanayd muxuu ahaa erey bixinta loo isticmaalayo arrimaha noocan oo kaleeta runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaana rabaa meeshaas inaan caddeeyo oo aan baraarujiyo horta mabda'iyan waddankeenna warbaahin madax bannaan oo maaragtay dowladdu aanay wax u yeerin ayuu leeyahay midda dowladda iyo wax fara badan oo aan ahayn warbaahin rasmi ah oo hadda saamayn xoog leh oo ah baraha bulshada muxuu ahaa oo dadku sida shakhsiga ay u leeyihiin saamayna badanna leh marka runtii yay tahay inay erey bixinta noocaas oo kaleeta ah keenaan dowladdu waana ku celcelisaa wayna leedahay muxuu ahaa erey bixin Soomaaliya waxay aaminsan tahay in yacni lagu xadgudbay siyaadadeeda oo baddeeda lagu haysto taasoo muxuu ahaa yacni qadiyad macna meesha Soomaaliya ay taagan tahay sababtaan dooda ugu jirnaayba waa taas marka laakiin dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta waxa laga rabaa inay iyagoo dareenkooda la tashanaya runtii ay sidaas u qaataan ereygu ma aha badda lagu muransan yahay ama badda la isku haysto ama waxa la xiriira dabcan iyadoo saxaafaddu dee ethic iyo ay leedahay waxyaabaha ay tahay in la ilaaliyo haddana qadiyadda wadaniga ah iyo meesha ay dowladda Soomaaliya dalka matasha ay ka taagan tahay waa halkaas waana arrin aad iyo aad muhiim u ah ereygu meesha aad ka taagan tahay ama ereyga aad isticmaashaa wuxuu ka tarjumayaa waxa aad aaminsan tahay amiin haaruun wuxuu yiri ma jirtaa xogsiin meel yacni si joogta ah saxaafadda looga siiyo xogta amiin waxaan rabaa horta
marka hore qadiyaddan waa qadiyad maxkamadeed si ka duwan xaaladaha caadiga ah ayaa looga hadlaa ama loo bixiyaa. marka uma bannaana sida qadiyadaha kaleeto caadiga ah ay u bannaan yihiin in mar kasta looga hadlo. sidaas daraaddeed ma aha qadiyad cid kasta ay ka hadasho, xilli kastana lagama hadlo. waqtiyo laga hadlo iyo si looga hadlay leedahay. dowladdu aragti ma ka leedahay? haa, aragti bay ka leedahay. aragtidaasi waxay tahay dad mas-uuliyiin oo waxaa jira sida aad ogtihiin si joogtaa uga hadla, oo ay ugu horeyso xafiiska xeer ilaalinta laga soo bilaabo markii xeer ilaaliyaha hadda nagu soo biiri doona xeer ilaaliyaha hore uu joogay iyo xeer ilaaliyaha cusub. waxaad ogtihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo isaguna si joogta ah qadiyaddaas uga hadla. mararka qaarkood oo madaxtooyadu ay ka hadasho aanan ku faraxsanahay agaasime cabdinuur inuu muxuu ahaa joogo, muxuu ahaa dadkii siyaasaddaas wax ka dejiyena uu ka mid ahaa, iyo sidoo kaleeto wasaaradda warfaafinta oo marar badan ka hadasha. gaar ahaan xilliyada maxkamaddu ay socoto oo ay furan tahay oo dooduhu ay taagan yihiin, dowladdu waxay casuuntaa oo isku daydaa in ay muxuu ahaa u fududayso in ay hayg tagaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ama dowladda ha u shaqeeyeen ama yaanay dowladda u shaqaynin si xogta ay u helaan. laakiin meesha sheekada angalka ay ila tahay inay muhiim tahay oo aan lagu baraarugsanayn waxaa weeye xogta maxkamaddu qaybo badan oo ka mida dowladuhu toos uguma dhawaaqaan wararka socda. waa xogo ay tahay weriyaashu inay iyagu raadsadaan, iyagu in ay muxuu ahaa galaangalkeeda yeeshaan, iyagu ay xirfadeeda iyo awooddeeda yeeshaan. markaan saas leeyahana inaysan lahayn maahana way leeyihiin wayna sameeyaan. marka kuwaasaa mararka qaarkood loo baahan yahay in weriyaasheennu xogta badda marka ay raadinayaan xafiisyada ay mudan tahay muxuu ahaa ay ka raadiyaan si la siman sida warbaahinta Kenya amaba ka horeysa inay maaragta muxuu ahaa u raadiyaan. sidoo kaleetana ay ku baraarugaan cidda ay xogta ka qaadanayaan iyo cidda ay xogtan ka xiganayaan inaysan noqonin isla ciddii tartanka kula jiray oo ahayd warbixinta adduunka ay u gudbinayaan ciddii ay ku tartanayeen inaynu xogtooda qaadin. marka laakiin way jirtaa wixii gaabis oo jirana diyaaraan u nahay, laakiin runtii waxaan aaminsannahay in dowladdu si wanaagsan arrintaa u maamushay. walaalkay warfa wuxuu soo jeediyey si gaara warbaahinta dowladdu barnaamijyo ma leedahay. haa, barnaamijyo ayaa jira ka baxa telefishinka qaranka iyo raadiyaha oo si guud looga hadlo qadiyadda ku saabsan wadaniyadda. waxyaaba aan laga hadlin baa jira oo yacni xukunka hortiisa aan laga hordhicin. qadiyadaha maxkamadahoo kaleeto maaha qadiyad caadiyahoo weliya wuxuu rabo uu ka sheegi karo ama sida uu rabo uu uga hadli karo. waa ku faraxsanahay in dad sharci yaqaana ay ku jiraan, gaar ahaan dee warbaahinta qaranka oo dalka matalaysay wararka ay sheegayso taxadar badan ayaa laga sameeyaa maadaama weli qadiyaddu qadiyad socota ay tahay. laakiin waa soo dhoweynaynaa fikradaha ah in dowladduna inta hore ay kasii badiso. erega aan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa laakiin waxay tahay bal inaan isku dayno inaan akhrirno 48 saac ee ugu dambeysay wixii la qoray, gaar ahaan dadka weriyaasha ah iyo dadka aqoon-yahanka ah oo markaas la barbar dhigo dhinacyada kaleeto waxa ay muxuu ahaa qoreen. sidoo kaleeto aan fiirino yaa xogta laga xigtaa. hadda sheekada ku saabsan maanta aadka u socotay oo haddana dadka sharci yaqaanada ay ka hadleen oo ku saabsan yani Kenya inay ka maqnaanayso inay maxkamadda ka soo hor muuqato sida hadda abukaatu uu noo sheegay. yacni maanta oo dhan inta badan haddaad raadiso cidda warbaahinteenu ay ka xiganaysay waxay ahayd warbaahinta Kenya. warbaahintu way isxigataa, inay isxigataa dhib maaha, laakiin waxay u baahan tahay saameyntay nagu yeelan kartaa maxay tahay in dadka aqoon-yahanka qaanuunka yaqaanay halkan ku jira ay ka hadlaan. haddii la xiganayo ilaa heerkeen xiganaynaa, ma laga yaabaa in wararkaas aan tebinaynaa ay qayb ku noqdaan ama ay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaa doodda Soomaaliya ama ay jid u furaan muxuu ahaa doodda Kenya. marka waa jeclahay in lagu daro su'aalaha abukaataha iyo dadka kale sharci yaqaanka ay ka hadlayaan. waana mahadsantihi. waa tahay aad baa u mahadsan tahay wasiir. waxaan rabaa in dadku ay si dhaba u fahmaan xaaladda hadda laga hadlaayo oo taagan inay tahay xaalad guud oo qaran. marka haddiiba ummaddu baraaruga ay ku baraarugsan tahay arrintan ay aad u yar tahay, wasaaradda warfaafintuna ay tahay wasaaraddii ay ahayd inay barnaamijkan on board ka dhigto oo ay ummadda si guud u gaarsiiso wacyiga arrinta badda iyo meesha ay marayso. sidee loo heli karaa qaanuun yaqaano Soomaaliyeed oo muddo dheer arrimahan badda aad ugu takhasusay oo ummaddu ay kaga faa'iideysato in ay u soo gudbiyaan xogaha dhabta ah
waxaa la isku hayo marka wasiir arrintaas ayaan jeclaan lahaa bal inaad jawaab ka bixiso insha allah. wax yar ii jilci cali adigoo raalli ah si fiican uma fahmin su-aasha. wasiir raalli noqo waxaan ula jeedaa waxaa jira dad badan oo sharci yaqaano ah, dad badan oo arrimaha badda ku takhasusay oo ay ka mid yihiin dad hadda ka mid ah professor Saalixi oo wafdiga dowladda ku jira, aqoon-yahano badan oo arrintan badda oo la isku hayo aad ugu dhunduleela. marka dadkaas iyaga ah sideebaa loogu fududayn karaa inaan dadkeenna ama dhalinyarada ha la ahaado ama dadkii burburka la kowsaday ha ahaadeene inay helaan akhbaaraad aad u waaweyn oo ku saabsan arrintan badda iyo taariikhda baddeenna iyo waxa hadda la isku haya si dadku ay caadiyan u fahmaan waxa runtoo ka jira arrintan. ma ka jawaabi karaa? soo dhawow wasiir. waa mahadsantahay cali, runtii aad baad u mahadsantahay. waxaan u malaynayaa abukaatahana hadaaya in la weydiiyo qof weydiiyey su-aal ahayd aniga ay la tahay inay abukaataha iyo dadka kale oo xogogaalkii si fiican u sharaxaan oo ah muranka baddu ma 2009 uu bilowday mise ka hor ayuu jiray. runtii marar badan waxaa jiray dad taariikhyahana wax badan qoray, waxaa jiray buugaag laga qoray arrintan oo dad hadda nool oo khubara ay qoreen. professor Saalix waxaan u malaynayaa haddii aanan qaldanay wuxuu ka mid yahay dadka hadda ku lugta la dacwada difaaca Soomaaliya waqti badanna ku soo jiray. horta tiimka dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyeed matalaahu markasta iyaga qorsheeya dadka muxuu ahaa u hadlaya warbaahinta u hadlaya kuwa loo ogol yahay inay hadlaan iyo kuwa aan muxuu ahaa loo ogolayn inay hadlaan iyo sida ay shaqooyinku uga qaybsan yihiin iyaga yaqaana. laakiin runtii waa kugu raacsanahay cali in baahi badan loo qabo taariikhda khilaafkan in dadka loo sheego, in buugaagta laga aqriyo. muxuu ahaa admiraal faarax qar oo kaleeto wax badan ayuu ka qoray, barnaamijyo taxanaa oo uu sameeyey warbaahinta ka baxayna waa jiraan. aad iyo aad baan ugu raacsanahay inay tahay arrin muhiima in dadka xogogaalka yahay dadka taariikhda muxuu ahaa uga sheekeeyaan qadiyadan iyo xitaa meesha maxay muhiim u tahay, maxay Soomaaliya Kenya muxuu ahaa maxay Kenya noogu haysataa, meeshaan maxay u danaynaysaa, maxay 8-9 xujo oo kala duwan midba mar u keenaysaa, maxay ka baqaysaa oo muxuu ahaa aynan maxkamadda ugu qanacsanayn. waxaasoo dhan waxay ila tahay wax u baahan in looga jawaabo dadka inay yihiin. waa tahay wasiir aad baa u mahadsan tahay. waxaan rabnaa marka in aan su-aalaha siina dadka Soomaaliyeed ee halkan ku jira. waxaan jeclaa inaan kusoo dhaweeyo Cantoobo oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkan Banaadir, nin dhalinyaro aan ah. marka soo dhawow Cantoobo. cali waa mahadsan tahay cabdiqafaar waaye. waxaa dhici karta Cantoobo inuu mashquulsan yahay, gabdho badanaa jooga oo muddana nala joogay sida walaal Maandeeq Xaaji Cilmi. Xamdaan waa ku imaanaynaa brother iyo Nasra Bashiir oo bahda warfaafinta ku jirta, maadaama barnaamijkan intii shalay announcementigiisa la waday aan dad badan ama club houseka ama online-ka ay ku ogaayeen su-aalana la soo weydiiyaa jiray oo ay dhici karto in wasiir alcadaala iyo sidoo kale hadaayta agaasimo cabdinuuraan u jeeday inay wax ku dari karaan ay tahay. marka su-aalahaas oo online-kana lagu soo weydiiyey oo dhinaca doorka warfaafinta ee kiiska badda la xiriira waan u soo noqonaynaa. waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero walaashay Maandeeq Xaaji Cilmi. Maandeeq soo dhow. cabdiqafaar wax yar waa idinla sii joogaya abow nasre iyo hormari adinka horaale waan idin wada salaamaya. wasiir alcadaalana aada u salaamaya, dood fiicanaana socoto. qaybta warbaahinta iyo qadiyadda baddaana aniga ay tahay maxaa la dhahaa ku-aadkayga. marka nasre iyo ha iga hormaraan. Nasra Bashiir soo dhow walaashay. haddii ay hadlaynin gabdhaha waxaa siin kartaa cabdifataax baa maagiisa dhegdheg dhahay. cabdifataax sii walaalo. waa tahay waa mahadsantaha. soo dhow walaalo. anigu waxaan qabaa laba su-aalood oo fudud. midda koowaad waxay ku socotaa lawyer cali. in badan micnaha waa qareenkii ama
qaadigii cabdulqawi roolkiisa maadaama uu hogaankii xilligii uu hogaankiisu dhammaaday hadda ma ka mid yahay dadka benchiga fadhiya oo go-aanka macnaha ka qaadanaya arrintan taas waa su-aashaas su-aasha kalena waa wasiirkay ku socotaa oo ah wasiire hadda luuqadda ugu weyn oo adduunka audiensiga adduunka ku hadlaan waa english marka ma la dhihi karaa sababta ay warbaahinteenu aysan saameyn badan u lahayn ma jiro wargeysyo waaweyn ama tvyo dedicated ku ah luuqadda ingiriiska wax ku soo saara mayna inii qorshaysan tahay wasaaraddaada ahaan si dee adduunka audience weyn loo gaaro inaad publicationkiina aad ku dartaan waa labadaas su'aalood xamdaan intaanan wasiirka siinin adigana ku darso xamdaan xidig cabdiqafaar waa mahadsan tahay wasiirka iyo asxaabta kalena salaamaya laba su-aalood baan qabaa oo ku leh su-aasheeda koobaad waxay tahay xamdaan saysan wasiirka su-aalaha ugu badan dad 500 gaaraya halkan ku jira adoo kun jeer raalli waxaan codsan lahaa su-aalaha hal in laga dhigo maadaama wasiirka keligiisa inta badan su-aalo badan ku dhacayaan si enerjigiisa aan u beeqaamin waa mahadsan mahadsanta cabdiqafaar okay waaye su-aasha tayada muhiimka waan soo qaadanayaa sida hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan dowladda Kenya waxay ka cabatay inkastoo arrintaa dad badan dhaheen way ka laabatay laakiin sida lawyerku inoo sheegay ay ka cabatay in aanay hadda ka qayb geli karin laakiin taas waxay u muuqatay inay raadinayso marmarsiinyo ay uga baxaso dacwadan oo dhan marka wasiir haddii ay sidaa hadda Kenya ay uga baxdo maxkamadduna ay u xukunto Soomaaliya lahaanshaha baddaas laakiin Kenya ay ku doodo inaanay ka qayb gelin ayna diido maadaama aanay jirin awood ciidan oo maxkamaddu leedahay eriyadaas ama meesha la isku haystana oo aynu aaminsanahay inaynu leenahay laynoo xukumo dowladdeenu ma lahan saynu ognahay ciidan badeed ama maraakiib badeed oo difaacda badda Soomaaliya marka ma jirtaa qorshe dowlado saaxiiba oo dowladdeenu uu kala dhexeeyo heshiis difaac ama gaashaandhig oo ay la kaashanayso difaaca badaha Soomaaliya arrintaasaan rabay inaan weydiiyo wasiirka aad u mahadsantihiin wasiir cabdiraxmaan soo dhow waa mahadsan tahay cabdiqafaar aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalahay hadle cabdifataax iyo xamdaan su-aasha cabdifataax runtii aad iyo aad ayaan muxuu ahaa u waafaqsanahay in la xoojiyo muxuu ahaa warbaahinta Soomaalida tayadeeda in kor loo qaado waa arrin intaan ogahay warbaahinta Soomaaliyeed ka dhex socota dabcan duruufihii waddankeena ka jiray iyo mashaakilaadkii waddankeena ka jiray ayaa saameeyey sina curdina u tahay oo maaragtay warbaahintu sideedaba annaga isticmaalkeedu duruufihii iyo deganaansho la'aantii waddankeena ka jirtay iyo nidaam xukuneedka soo maray ayaa saameyn badan ku yeeshay hase ahaatee waana yani qayb ahaan horta way jiraan websiteyo iyo muxuu ahaa warbaahin Soomaaliyeed oo English wax ku qora si wanaagsan wax u qora waxaa kaloo jira saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed oo muxuu ahaa warbaahinta caalamiga ah ee luqadaha kala duwan ku baxa muxuu ahaa wax u dira oo macluumaad u dira sidoo kaleeto wakaaladda rasmiga ah ee dalku uu leeyahay muxuu ahaa Sona qayb English ah ayay leedahay oo macluumaadka lagu gudbiyo marka waxaan aaminsanahay laakiin adduunyadu hadda way isku furantayba inaad xog muhiim ah hayso ayaa muhiim adduunka mararka qaarkood luqadda waxa ku qasban haddaad xog muhiim ah hayso iyadaa ku qasban dadka raadiya dad muxuu ahaa dhegaystayaala ama macaamiil raadiya iyagaa ku qasban inay tarjumaan oo ay sameeyaan marka waxay ila tahay qadiyaadka aan tebinayna ay ku xiran tahay Soomaaliya adduunku kama war la'a weliba waa mid ka mid a meelaha muxuu ahaa ugu waaweyn ee warsameeyaasha maanta jira dunida ayay ka mid tahay Soomaaliya oo maadaama dhibaatooyin amni ka jiraan dhinac kale horumar uu ka jiro dagaal aan ka soo kabanayno muxuu ahaa xiriirada ama muxuu ahaa siyaasadaha caalamiga ama gobolka ama carabta ama dunida inteeda kaleeta aan saameyn weyn ku leenahay marka waa aaminsanahay qadiyadaas haddana way jiraan in la xoojiyana way tahay laakiin runtii waxay ila tahay dad badan oo xirfadlayaal oo wariyaal oo cabdiqafaar iyo dadka hadda hadlayo badan iyo cali yaasiin iyo dad badan ay ku jiraan iyo dadka halkan jooga oo dhanna way fahmayaan oo aanan magacyay karin annaga waxaan u baahannahay inaan noqono isha warka curisa warka weyn oo adduunyada ka gadmaya innagay tahay inaan curino sida haddaba qaar badan oo ka mid a warbaahintu ay sameeyaan
oo annaga nala ka xigto intii mar kasta aan ahaan lahayn cidda la xigto. marka taas cabdifataax in la xoojiyana aadan kugu waafaqsanahay. ka wasaarad ahaan waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid a wargeyska dalka oo hadda af soomaali ku soo baxay in muxuu ahaa lagu daro luuqadaha carabiga iyo ingilishka lagu daro soona la xoojiyo. muxuu ahaa warbaahinta kale oo soomaaliyeedna waa ka saacidaynaa wixii ay maxaa awoodeenaa. xamdaan arrinta uu ka hadlay si ahaan muxuu ahaa ee ku saabsan maxaa inoo qorshaysan haddii arrinta ay soco weyso si ahaan mawduuca qaybta aniga aan ku lahaa waa ka yara baxsan tahay. laakiin si guud soomaaliya duruufo kale maraaxil kasta oo ay ku sugneed iyo xaalad kasta oo ay soo martay marna laguma guulaysan dalkeeda in laga qaato ilaa waa daba joogtay wayna daba socotay doodoodina way taagneed. meel hadda inta xoog keligiis looga qabsaday looga haystaahina ma jirto. dowladda soomaaliyana gudahana siyaasad ay ka leedahay dibaddana siyaasad ay ka leedahay. welwel ku saabsan in dal soomaaliyeed meel xoog lagu haysto oo ay xoog isaga haysan kartaa ma badna mana jiro. dadka soomaalida halkan ku jirana runtii inay taas waxa qalbiga waaye waxa wax laga haysto wax laga xukumaahiye muuqaalka iyo madaafiicda iyo noocyadeeda ma aha. dadka soomaaliyeed dad runtii iyaga oo xitaa dowlad aan lahayn ku guulaystay jiritaankooda inay difaacdaan waaye. sida kalena annagu hadda waxaan raadinaynaa waa maadaama nala ku qabsaday in si sharci ah aan ku garbaxno. dabcan markaan ku garbaxno oo xuquuqdeena biidnillaahi kariim sharcigu uu inoo xukumana ma jiri doono welwel badan oo arrintaas ku saabsan. dowladduna siyaasaad iyo aragtiyo ayay ka leedahay. waqtigeedana dad iga habboon ayaa ka hadli doona insha allah. wasiir aada u mahadsan tahay sida quruxda badan ee usoo koobtaa uga jawaabtay. ayaanla waa kuu imaana waa ku siinaa agaasime cabdinuura nala jooga. sidoo kale cali yaasiin oo inta badan su-aalaha soo qabqaban doona oo maaragtay barnaamijka qaybaha dhexe. dhinaca kale samater wuxuu ku mashquulsan yahay xiriir la samaynta xeerlaaliyihii hore ee dalka dr axmed cali daahir. kolley isagaa warbixin naga soo siin doona halkaas. laakiin waxaan rabaa wasiir alcadaala iyo sidoo kale cabdinuurna bal inuu contribute gareeyo maadaama agaasime aa nala joogtid. su-aalaha dhinaca online-ka nala kusoo weydiinaya waxaa ka mid ah soomaaliya warbaahinteeda inta badan waxay wax ku tabisaa af soomaali. kenyana waxaan ognahay inay wax ku tabisaa af ingiriis. sidoo kale kenya waxay adeegsataa janaalada caalamiga ah hadday noqon lahayd wargeysyada sida washington post, new york times, the guardian iyo wargeysyada ama wakaaladaha wararka ee caalamiga ah. ma jirtaa ama wasaaradda warfaafinta ama xafiisyada warfaafinta ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha istiraatiijiyad ugu degan si qadiyadda badda soomaaliya looga iibiyo caalamka inay warbixino iyo waraysiyo iyo positionka soomaaliya iyo argumentiga soomaaliya lagu soo daabaco wargeysyadaas caalamiga ah ee kasoo baxa gobolka hadday noqon lahayd geeska africa ama bariga dhexe ama caalamka sida dalalka galbeedka. waxaan jeclaan lahaa su-aashaasoo dhinaca online-ka kusoo noqnoqonaysay ilaa shalayna la weydiinayay inaan marka hore siiyo agaasime cabdinuur anigoo ka cudur daaranayo maadaama markii hore uusan ugu jiran dadka su-aalaha aan weydiinayno. wasiir cabdiraxmaanna maadaama wasaaradda warfaafinta uu nagala joogo uu qaato. marka waxaan jeclaan lahaa cabdinuur iyo wasiir cabdiraxmaan inaa kala qaybsataan. soo dhawaada. agaasime cabdinuur waa maqashaa soo maha cabdiqafar waa ku maqlaa ku soco. horta waa mahadsantihiin mawduuc ballaaran waaye inkastoo aan arkin xeerlaaliye hore dr axmed cali daahir. haddana waxaan fahamsanahay inkastoon dib idinkaga soo biiray haddana waxa laga hadlaya inay tahay dacwada badda iyo arrinta la xiriirta wacyigelinta ama warbaahinta. runtii markii hore hadda la baajiyo u dambeysay diyaargarow fiican aan muujinay. waxaanan xitaa ugu talagalnay wariyaal meel walba ka imaanaya in ay coverage fiican siiyaan. waqti badanna waa gelinay laakiin dee baaqashada coronavirus ayaa dib u dhac keenay. haddana lafteeda xadiday wufuudda aadaysa meesha in aada loo koobo oo number kooban inay meesha tagaan. marka waa run warbaahinta kenya inay aada u abaabulan tahay oo dhaqaalo fara badan ay dowladda kenya ku bixiso oo mar walba distortion iyo in annaga nalaga weeciyo jihada la isku dayo oo siyaasadeenna mararka qaar meelaha ay madaxda isku aragto la sarrifto oo si khaldan bulshada loogu tabiyo oo mar walba lagu dadaalo un sidii lagu heli lahaa marmarsiyo un
ama madaxda afkeeda ha laga helo ama maxay kulamada lala gelaa qiil ha laga dhigto ha la dhaho wadahadalaha noo socdo habeen dhexdaas oo Mandeeq iyo tiim halkan ku jira iyo Samatar iyo Suud iyo barnaamij ay wadeenaan runtii faahfaahin dheer oo tricks-ka iyo khiyaanooyinka ay Kenya adeegsanaysay 4 sano la soo dhaafay iyo sida ay mar walba u doonaysay inay raayul caamkan u lumiso khariidado been aan u qaybinayso mar walba u geynayso. Waxaan xasuustaa safar aan sabab ku tagnay in dalal fara badan oo Afrikaan ay geysay map khaldan oo ay leedahay xadgudub inta leegana lagu sameeyay Soomaaliya xaalkeeda waa saas. ilaa annaga injineerkeena injineer Saalixi ilaahay noo xifdiyo hanoo dhowree oo safarka nagu weheliyey maapka saxda aan qaadnay dalal dhowr hoon side meeting la yeelana aan tusnay aan ku nirnay war sida la idin sheegay ma ahe waa sidan sida xaalku yahay. laakiin Kenya mar walba waxay baqdin ka qabtay cadaaladda adduunka waxayna aaminsanayd in sida hadda wax ku socdaan hadday ku socdaan inay Soomaaliya ka adkaan karto oo favorable position ay Soomaaliya haysato marka laga fiiriyo kiisaskii Abukaata Cali uu sharaxay ama Latin America ka dhacay ama galbeedka Afrika ka dhacay dalal ay isku qabsadeen xuduud badeed loo kala xukumay ayadoo la fiirinayo mar walba equitable solution ama kiisba kiiska kale waa ka duwanaa yani laakiin annagu kiiskan wuxuu shabahaa kiisas fara badan oo meesha line-ka uu ka soo galo lagu jaangoyo inuu straight line toos u sii baxo oo aan wax qalooca lagu sameynin. laakiin qolada la yiraahdo Kenya waxyaabaha khaldaya waxaa ka mid ah iyaga tanaasul waxay u sameeyeen Tanzania oo outside court settlement la gaaray heshiis khadka hadda Tanzania meesha u marana waa meel Kenya ay wax faradan ka maqan yihiin. marka runtii waxaan bogaadinayaa sharci yaqaanada iyo qareennada hawshan ka shaqeynayay iyo mas'uuliyiinta kala duwanaaga Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda soo maray ayagana runtii sida tooska ah uga shaqeynayay. Kenyana runtii murqo kasta oo diblomaasiyadeed ay isticmaali karsi awood walba iyo saaxiibo walba isticmaali karto Afrikaan baa u badnaadee waa isku dayday iyo shirkadaha runtii danaha kale ee meesha raba inay wax ka maalaan war in la dhaho war labadan qolo bal banaanka lagu wada hadashiyo waxoodan ceyrinka ku kala qaataan. laakiin runtii madaxdeena mar walba waxaa ka go'nayd in